kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin wadaawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka baraha bulshada Shakaal TV oo hadahan oo kaleete saacadan oo kaleete aad ka daawataan telefishinka Shakaal anigu waxaan ahay Masuul Cabdiqaadir soo saaraha barnaamijka dabcan barnaamijka baraha bulshada waxaanu kaga hadalnaa waxyaabaha ka dhacaya baraha bulshada ama aaladaha ay dabcan dadku ay wadaagaan toddobaadkii ugu dambeeyay baraha bulshada shikooyinkii qabsaday ayaan idin wada ama idin la wadaagaya daawadayaal qodobka ugu horeeya hadii aan soo qabto waxa la yiraahday nin bangi uu lacag badan ka dhacay ku tilmaamay waajibaad uu gutay bangiga waxaan u dhacay danta shacabka laakiin tuuganimo kuma sheegi kartaan sababtoo ah qof maskiin ah oo la dhaco waxa la yiraahdaa tuuganimo qofka tuuga dhaca waa la cafiyaa kan bangiga dhaca waa u sharaf ayuu yiri hogaamiyaha jabhadda Lucio Urtebia wuxuu ahaa hogaamiye jabhad ka dhaqdhaqaaqa Latin America iyo qaybo kamid ah Yurub fadhigooduna ahaa dalka Spain jabhadaasi oo lagu yaqiinay ficilada ay kamid yihiin afduubka dhaca iyo inay dadka wadamada u kala tahriibiyaan Lucio Urtebia oo 1980 ahaa ninka sida aadka u raadinayay wadamo ku yaala Latin America iyo Yurub isaga oo loo haystay inuu dhac bareera u geystay bangiga la oran jiray National City Bank oo hadda loo yaqaan City Bank jabhadu ay dhacday lacag dhan 20 milyan oo dollarka Mareykanka inkasta oo bangiga lacagaha laga dhacay uu sheegay in lacagta inta leeg laga dhacay walow ay cadadkeeda sheegin booliska caalamiga ee loo yaqaan afka qalaad Interpol oo amar lagu siiyay soo qabashada ninkaasi waxa ku adkaatay inay soo qabtaan Lucio oo aaminsan lacagta kooxda uu hogaaminayo ay dhacday inay ahayd lacag ay dhaceen si ay u gutaan waajib diini ah lacagtuna uu xubnaha jabhadda ka tirsanaa wax ugu qabtay taasna ay dambi ahayn ficilka dhaca ee jabhaddu u geysatay bangiga waxa ka dhashay dood ku saabsan dareenka iyo sharciga dhanka sharciga waxa la aaminsan yahay inuu falkaasi yahay tuuganimo uu mudan yahay in sharciga lala tiigsado halka aragtida jabhadda iyo hogaamiyayaasheedu ay aaminsan yihiin oo ah inay ficilka shacabka dartii u sameeyeen wuxuuna Lucio ku doodayaa ficilka ay bangiga lacagtaasi uga dhaceen inay kala tashadeen hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa xornimadoonka wadanka Latin America Che Guevara Lucio 1931 ayuu dhashay magaalada Casceta ee dalka Spain ayuuna ku dhashay waxa uu ahaa nin aan waxba qorin waxna akhrin yaraantiisii wuxuu ahaa nin calool adag oo ku dhiirada in uu helo wixii uu ku hamiyo sax iyo khalad waxay dooniba ha ahaadaan waligay shakiga ma gelin waxaan loo ogolayn inay dunidaba ka jiraan haddii aan wax u baahdo waxaan u maraa wadada kasta oo aan ku heli karo anigoo u arka inay saxan tahay ayuu yiri yaraantiisii wuxuu sidoo kale ahaa nin aan ka gaban inuu lacagaha ka xado dadka wax haysta iyo sanaadiiqda kaniisadaha gudahooda la dhigo iyagoo u arkayay inuu xaq u leeyahay inay jirin wax ka mamnuucaya qof saboolnimo ku soo barbaaray maadaama uu ahaa si uu u noolaado wuxuu xadi jiray khudaarta suuqa lagu iibiyo markii uu qangaaray wuxuu ka mid noqday koox xuduudaha wadamada Latin America dadka ka soo talaabiso isla markaana wadamada uu kala goosho sigaarka dawooyinka iyo khamriga markii dambana hub sharci daraaha iyo dariiska ay ciidamada qaataan ayuu burcada iyo jabhadaha u kala qaadi jiray arinta basasha ayaa toddobaadka ugu dambeeyay baraha bulshada ay dadku ku wada xiriiraan si guud u wada qabsatay walow cid kasta ay si gaar ah ay u micneeyaan balse waxaan idin la wadaagi doonaa wadan uu qiimaha basasha ka yahay 3 laabka qiimaha hilibka basashu waxay ka mid tahay khudaarta ay sida isku midka looga isticmaalo guud ahaan caalamka Soomaaliduna markasta oo cunto karinayaan kama maqna basal waxaana basasha lagu tilmaamaa mid kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee cuntada lagu carfiyo in basal la jarjaro waa hawsha ugu xanuunka badan marka lagu guda jiro jikada maadaama ay indhaha ilmeeyaan waqtiga mindida lagu jarjarayana laakiin oohinta way ka badan tahay mid ku saabsan basasha indhaha galaysa marka la joogo dalka Philippines dhowrkii bilood ee la soo dhaafay shacabka dalkaas waxa haysatay dhibaato la xiriidha qiimaha basasha oo aad sare uga kacay dadka qaarna ka oohisiiyay qiimaha halkii kiilo oo basal ah waxa uu Soomaaliya ka joogaa qiyaastii $1 ilaa $1 sida caadiga ahna hilibka isugu jira ariga lo'da geela iyo digaaga ayaa aad ugu qiimo badan khudaarta ay ku jirto basasha maadaama loo adeegsado in lagu carfiyo oo kaliya hase yeeshee si ka duwan dunida inteeda kale ay basashu qiimo isugu dhow ka joogto wadanka Philippines waxa aad raqiis uga ah hilibka marka la barbar dhigo qiimaha ay ka joogto basasha
isbuucan waxaa lasoo tijaabiyey in halka kiilo oo basal ah ay suuqyada wadankaas ka gaadhay ku dhowaad $8 iyo badh, halka kiilada hilibka digaaga ah lagu kala iibsanayo $3 oo keliya. celcelis ahaan mushaharaadka ay dadka ku nool Philippines qaataan waxa uu maalintii noqonayaa qiyaastii $4.84 $6.84 senti, taasoo micnaheedu yahay in mushaharka maalinlaha loo qaybiyey uu ka yar yahay qiimaha 1 kiilo oo basal ah. wadanka Philippines ayaa ka mid ah dalalka sida aadka looga isticmaalo raashinka lagu daro basasha iyo toonta, taasoo qayb ka ah raashin dhaqameedka dalka oo soo jiray ilaa xilligii gumaysiga Spain. baraha bulshada waxaa lagu faafiyey qoraal ku saabsan in hadiyadaha ugu muhiimsan ee qoyska loo geeyo ay tahay basal. dowladda ayaa u garanaysa ganacsato si dhuumaaleysi ah basal kusoo geliya dalkaas, iyagoo isbuucan gacanta ku dhigay badeecooyin basal ah oo lagu qiimeeyey lacag ka badan $300,000. waxaa dhanka kale dowladda lagu eedeeyey inay ka gaabisay wax ka qabashada sixir bararka sida gaarka u saameeyey qiimaha basasha. waxaa jira 2 arrin oo sabab u ah sare u kaca qiimaha basasha ee dalka Philippines, sida uu sheegay Jim oo ah khabiir ku xeel dheer dhinaca dhaqaalaha. tan koobaad waa in wadankaas ay ku dhufatay duufaan culus intii u dhaxaysay biliha Agoosto iyo Sebtembar, sidaa darteedna ay burburisay dalagyadii beeraha ee la filayay. musiibadaas ayaa timid xilli markii horeba ay basasha beeraha ka soo go'da ahayd mid aan dabooli karin baahida suuqa. sababta labaad ayaa ah in basasha laga soo dhoofin jiray wadanka dibadiisa ay ka daahday waqtigii loo baahnaa. xilliga la soo geliyo basasha ayaa mar walba ku beegmanta waqtiga ay soo goodo dalagyada beeraha ee ku beegan bisha February. bilowgii bishii January ayay dowladda Philippines ansixisay in dalkeeda laga soo dhoofiyo ilaa 22 milyan oo tan oo basal ah si loo xasiliyo qiimaha suuqa. waa tahay daawadayaal, inta ayaan toddobaadkan kusoo afmeerayaa barnaamijka baraha bulshada Shakaal TV. walow ay jireen qodobo badan oo si weyn baraha bulshada u qabsaday, balse waqtiga oo noo saamaxayna awgiis dhowrkaas qodob ayaan kusoo koobayaa. dhanka kaamirada waa Mustafa, sidoo kale muuqaaladaas quruxda badan waxaa isku dabareeday Mustafa Yare. anigoo Masuul Cabdiqaadir ayaa barnaamijka idin soo saarayay. kulanti dambe oo xiiso leh ayaan leeyahay. sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. mac salaama.